السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal waan islaamay meel kasta joogtaanba maanta waxaan rabaa inaan fariin yar oo gaaban u diro xujayda sanadkan xajinaysa ee Soomaaliyeed meel kasta ka xajinayaan walaalyaal waxaa jira dowladda Sacuudiga waxay ku dhawaaqday in sanadkan kuleelka uu gaarsiisay yahay meel khatar ah oo uu gaarayo ilaa 51 grade iyo ka badanba sidaa darteed uu noqon karto khatar aad iyo aad u badan oo nafsad badan kalafsan karta sidaa darteed Soomaalida waxaa laga codsanayaa oo loo sheegayaa in ay arintaas digniin xoog leh ka qaataan taxadarna ay muujiyaan waxa loo baahan yahay waxa weeye qofka xaajiga ah intuu xajka joogo inuu biyo aad u fara badan cabo taasoo ka badbaadin karta in kuleelkaas faraha badan uu khatar gaarsiiyo nafsadiisa waxaa kaloo loo baahan yahay inaanan loo bixin meelaha furan oo banaanka ah waa in mar qofka uu jooga guryaha loogu talagalay iyo geedaha hoostooda siiba inta la joogo Muuna iyo Carafaad qofka waa inuu banaanka u bixin oo istaagin waxaa kaloo loo baahan yahay inuu qofka qaato dallad waliba dallad cad inuu qaato sidoo kale haweenka xujayda ah waxaa laga codsanayaa intay xajka joogaan inay xiranin xijaabka ama cabaayadaha madmadow kuwaasoo qorraxda soo jiidan kara oo dhibaatana kuleelka ku sii saacidin kara qofka waa inay dalladahaas cad qaataan buraashada biyo gataan biyo fara badan cabaan intay xajka joogaan waxa kale xujayda la ogeysiinayaa oo la rabaa inay ogaadaan in dadka buka oo daawooyinka joogtada qaata ay daawooyinkooda hore u qaataan isla markaasna ay qortaan liiska daawooyinka ay qaadanayaan oo lacala haddii ay ka lumaan ay farmashiyaalka Sacuudiga ku yaala oo la tagaan liiskaas daawooyinka ay qaataan si daawooyinkaas loo siiyo farmashiyaalka Sacuudiga kuma xiraayaan takhtar qoraalkiisa way siinayaan qofka haddii ogaadaan daawada u baahan yahay oo magaciisa uu tuso walaalyaal waxaa muhiim ah Ilaahay aniga aqbal xajka noona soo duceeya laakiin inaad taxadar aad iyo aad uga muujisaan arinta iyada ah biyadan oo la cabo iyo dalladahaas cadcad oo la qaato iyo qabowga meelaha qabowga oo lagu jiro arintaas waa muhiim waxaa kaloo jira maadaama uu kuleelka badan yahay waxaa laga yaabaa in meelaha dariiqyada la keeno biyo iyo cabitaano iyo waxyaalo la qasqasay fadlag waxyaalaha saqaadanina cabina cunooyinkaasna cunina dariiqyada lagu karinayo khatartooda ay leeyihiin sidaasoo kale dadka xujayda ah maaskada waa inay qaataan oo waqtiga la joogo dawaafka iyo marka lagu jiro iyo marka dhagax tuurka lagu jiro dadkoo dhan isu imaanayaan inay maaskadaas xirtaan maadaama adduunkoo dhan laga wada imaanayo hargab fara badan meesha laga soo qaado marka walaalayaal ogeysiiskaas yarta ayaan ugu talagalnay maanta Ilaahay naga aqbala noona soo duceeya. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.